بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدن رئيس الوزراء قدومي حقيقة كواد برلمانك وزير ردا حلبانada labada aqal shacab weynaha guud ahaan iyo cid walba ay fadhisa halkaan waa idin salaamaya marka ugu horeysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun runtii waxaan isugu nimi tacsida baroordiiqda ama xuska يعني محوها مجاهدينتي علمي هجر قوري الله نحرسته إيوه محوها مجاهد ككلا هبات جنة يا هادين إن شاء الله تعالى وحنسو استاجينا وربحين كوبان إذا كسيو تاريخ نولاتك علمي هجر علمي هاجر جوري وحكون رشيد دقمة بقول برتة سنة كيكون سجال بقول كنتني اللح وحنو جيريو ده إسقى لحدا يشان سنة جرة وحيفك وقت جاي صدني سجال قف أو يسوق جرة أنتوا دالي أنت يصير دالين يوولي بمد علاش اللي قصده وحكم النقضي عيدا بدأ حوق دالك سوماليا سنة كيكون سجال بقول تضاعتني أفر وحو جاري درجة حدقله wuxuuna ka ruqsaystay sanadkii 1984 kadibna wuxuu si toos ah ugu guuray dalka Sacuudi Arabiya wuxuuna halkaa ku noolaa ilaa ay sanadkii 2018 oo uu dib ugu soo guuray Soomaaliya kadib markay beesha cali madaxweyne dalabtay inuu noqdo nabadoonkooda dalkan yimaado waxa kale oo uu noqday gudoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan علمي هاجر مدمن أيوة دونتي الله نحرسته أسجى أنت كشهيد دجالة ذلك لوجا سفينة يا خوارج أنتوا إفك وجتجينا سمري إيمان الله كسيه أرنك مهم كأيوبا هن إلا فهمه أياه محمود أنتين ودون علمي هاجر جورة ومدمن غير هيران أو كلية أيوه أنتي صومالي دمانتين علمي هاجر وحود أنتي inaan xoolo dhaqatada iyo reer miyiga Soomaaliyeed dib dambe looga duugin lagana sumeyn ceelasha ay biyaha ka cabaan ayaga iyo xoolahooda guryahoodana aan la gubin cilmi hagar wuxuu u dhintay inaan xoolo dhaqatada Soomaaliyeed dib dambe xoog looga qaadan xoolahooda ayadoo loogu soo dhuumanayo magaca diinta islaamka sidoo kalena aan beeralayda laga boobin beerahooda tacabkooda iyo wax soo saarkooda علمي هاجر وحود انتي إن أنا كان عستد الصومالية دب دمبه لوجا قادر العقب بعدها أو لقوا باب إنا شعب كود علمي هاجر وحود انتي إن أنا دب دمبه نبضان صومالية لوجو مادين علمي هاجر وحود انتي إن يصير علماء الصومالية دب دمبه وجول ويلين إلا جماد الدوام علمي هاجر وحود انتي إن أنا دب دمبه looga cabsan in masaajidda lagu tukado cilmi hagar wuxuu u dhintay inaan dib dambe loo gaalaysiin shacabka Soomaaliyeed lana banlaysan diinta dhiigooda cilmi hagar wuxuu u dhintay inaan aabe iyo hooyo Soomaaliyeed dib dambe looga oohin oo aan wiilashooda la qafaalan laguna oo aysan ku dhiman dagaallo xaqdarro ah gabdhahoodana aan xoog lagu kaxaysan kadibna looga dhigin hadiyad niman aan Soomaali ahayn cilmi hagar wuxuu u dhintay inay dhalinyarada Soomaaliyeed dalkooda ku helaan nabad iyo mustaqbal cilmi hagar wuxuu u dhintay inay qurba joogta Soomaaliyeed dalka walwal la'aan dib ugu soo degi karaan maal gashan karaan ku kifaaxi karaan waxbarasho tayo lehna caruurtooda uga heli karaan cilmi hagar wuxuu u dhintay cilmi hagar wuu heli karay inuu gunnimo ku noolaado warkayga si fiican u dhageysta cilmi hagar wuu heli karay inuu gunnimo isaga noolaado wuxuu ka doorbiday asaga caruurtiisa iyo Soomaali weyn inay ku noolaadaan sharaf sababtaas ayuuna u dhintay
علمي حجر وحوها وداني مجاهد جيسي هالجماعة يحقو درر وحنو يستاجي إنه دفاع دلكيسة دتكيسة يدين تيسة نفتيسة أيو نوهي به وحنا نو بدامي ودada guusha ee adduunkan iyo aakhiraba cilmi hagar hadda uu aakhiro jiro muxuu naga filanayaa cilmi hagar wuxuu naga filanayaa inuusan dhicisoobin halgankii uu dhintay dalkana laga sifeeyo khawaarijta sidoo kalena inaan la dayacin dhashii uu ifka uga tagay haddaan u soo laabto dadaalada socda waxa ay muuqda dhaqdhaqaaqa ka bilowday dalka inuu ku soo beegmay xilli ay dawladda Soomaaliya ku jirto waqtiga la yiraahdo guul ama geeri do or die taasoo micnaheedu yahay dalka waa inuu ka dhaco isbedel sal adag oo waara ama waxa halis galaya dawladnimada iyo qarannimada waxa u baahan in la fahmo cadawga aan ishayno inuu la mid yahay maskii toddobada madax lahaa ee marka hal madax la gooyo ay booskii madaxa ka soo baxaysay laba madax laga maarmaana ay noqonaysay in mar kaliya la wada jaro toddobada madax si maska looga takhaluso taasoo haddana aanan sahlanayn haddaanan si dhab ah looga baaraan degin sidoo kalena waxa u baahan in la fahmo dunida gabaabsi inuu ku yahay dagaalkii lagula jiray argagixisada waa laga sii tagayaa dagaallo kale oo waaweyn ayaa loo jeestay waqti dhowna waxaan arki doonaa dunida oo ka jeesatay arrimaha Soomaaliya ee la xiriira argagixisada la dagaalanka waxaan arkaa inaysan isu dhigmin waqtiga aan haysanno iyo dagaalka nagala dhaxeeya maska toddobada madax leh waxaan kula talinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha inay ka shaqeeyaan sidii toddobada madax loo wada jari lahaa iyadoo aanan la bixinayn fursad kale ay madaxyo kale ugu soo dhashaan maska weliba waa in la suurto geliyo inta aan haysanno garab istaagga caalamka oo markaan ay muuqato inuu gabagabo yahay mashruucii ugu ballaarnaa ee isku keen xirayay dhankayga waxa waajib diini ah ama mid qaranba uga saaran yahay dalkayga iyo dadkayga sidii loo samata bixin lahaa waxaan insha Allah u soo bandhigi doonaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha markaan la kulmo daraasad dhammaystiran oo laga sameeyay sida ugu degdegta badan ee looga takhalusi karo maska toddobada madax leh wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh